aniga halka kan waxaan kaga dhawaaqayaa insha Allah tobanka arday ama tobanka natiijo ee ugu sareysa waxa laga yaabaa qaar baa ardayda natiijo isku mid ah helay waxa laga yaabaa saddex arday inay hal kaalin wada gashay laba arday inay hal kaalin wada gashay sidaa daraadeed waxaan ku dhawaaqayaa tobanka kaalimood ee ugu horeeya ardayga koowaad ee ardayda Puntland sanadka kaalinta koowaad galay waa Khadar Saciid Salaad wuxuu ka soo baxay dugsiga Boosaaso Public ninkaas waa ardaygii ugu sarreeyay guud ahaan ardayda 5,000 ah wuxuu helay 98 macnaha 2 point baa ka dhinaa imtixaankii guud ahaan ee dalka 98 u duceeya insha Allah ardaygaas waxa ku xigta gabadhaasi waxa la yiraahdaa Aasiya Cabdirasaaq Xirsi Cusmaan gabadhaasi waxay ka soo baxday dugsiga Galdogob gabadhaasi waa Galdogob waxay iyaduna heshay natiijada ah 97.86 waa gabadhaas weeyaan kaalinta saddexaad waxa galay Cabdiraxmaan Ali Maxamed Yuusuf waa wiil Imaam Nawawi Boosaaso 97.43 kaalinta afraad waxa galay Ahmed Qaasim Maxamuud Warsame waa Umar Samatar dugsiga Umar Samatar buu ka soo baxay galkaayo 97.27 kaalinta shanaad waxa galay Umar Maxamuud Xasan Yuusuf wuxuu ka baxay dugsiga Alwaaxa natiijadiisuna waxay noqotay 97.14 kaalinta lixaad waxa isla galay laba arday Cabdirasaaq Warsame Cusmaan Maxamed oo muntada Qardho 97 waxa kaalinta la galay Faarax Ismaaciil Cusmaan Maxamed oo isagu ah Nawawi Garowe iskuulka Imaam Nawawi Garowe iyo waslada arday kaalinta lixaad bay isla galeen waana 97 natiijadoodu kaalinta toddobaad waxa gashay gabadh la yiraahdo Anisa Awil Cabdiraxmaan Yuusuf gabadhaasi waa Nawawi Garowe iyada waxay 96.86 kaalinta sideedaad waxa galay Jaamac Xasan Axmed Guuleed Imaam Shaafici waa Imaam Shaafici Boosaaso wiilkaas wuxuu helay 96.29 kaalinta sagaalaad waxa isla galay saddex arday kaalinta sagaalaad saddex arday waa isla galay qofka ugu horeeya waa gabadh waxa la yiraahdaa Aamina Xuseen Umar Imaam Shaafici Boosaaso 96.14 saddexda arday darajadaas ay wada heleen waxa kaalinta la galay Farax waa wiil bana waa wiil Farax Yuusuf Ciise Yuusuf waa muntada Qardho isna darajadaas uu helay 96.14 waxa isla kaalinta sagaalaad la galay Maxamuud Axmed Diraac oo ah dugsiga Umar Samatar galkaayo isaguna wuxuu helay 96.14 ardayga tobnaad oo ah tobanka ardayga ugu sarreeya ugu hooseeya ugu dambeeya waxa weeyaan Cabdifataax Yuusuf Maxamed Xasan waa Imaam Nawawi Boosaaso wiilkaasna wuxuu helay 96 tobankaas kaalimood ee ugu horeeya ardayda Puntland sidaas bay ku soo gabagaboobeen ilaahay waxaan ugu rajaynayaa guud ahaan dhammaan ardayda Puntland ee tiro aad u yar dhacday 82 arday baa dhacday ardayda 5,000 82 arday baa dhacday it means waa wax aad u yar waa very relative wax aad u yar weeye wax aad u yar baa dhacay ilaahay waxaan ugu rajaynayaa dhamaantood inuu ku guuleeyo waxbarashadii waa ku guuleeyay inta wax hadhayna inuu ilaahay ku guuleeyo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh